qadarta alle waxay u baahan tahay dulqaad waana qayb ka mid ah imtixaanka alle ee uu Rabbi doonayo in adoomadiisa islaamka ah ay ku sabraan. waa hooyo Duniyo Saciid Axmed oo ah hooyada dhashay Saadaam Saciid Muuse oo ku xanuunsanaya Muqdisho wax uuna la ildaran yahay xanuun ka asiibay dhammaan xubnaha jirkiisa kaas oo ilaa iyo haatan aan la sheegin cudurku uu yahay inkastoo dhaqaatiirtu qaar ay ku tilmaameen in uu yahay nerfis. Saadaam Saciid Muuse waa 13 sano jir muuqaal ahaan uma qalmadaada aan sheegay waxaana hooyada dhashay dhibanahan xanuunsan ay inoo xaqiijisay in xanuunkan uu hayo muddo 13 sano ku dhow maadaama isagoo 6 bilood jira uu xanuunkan ku dhacay. Saadaam yare wuxuu noqday asagoo jira 6 bilood waa gartay wixii ka dambeeyayna Muqdisho u soo qaaday baadiyaan deganaa meel gobolaan ka soo qaaday Muqdisho u soo qaaday Muqdisho markaan u soo qaadana waxaan keenay dhakhtar neerbe waxba uu iga qaban waayay intii muddo abaan ku waday dhakhtar waxba iga qaban waana aan celiyay. gobol miyuusan ku noqday mise Muqdisho gudaheeda? gobol buu ku noqday sidaan. gobolkee? gobolka Gaalkacyo. Saadaam qoyskiisu waxay ka kooban yihiin ku dhawaad 13 qof waxaana la dhashay 7 caruur ah oo 2 ka mid ah ay isku aaba yihiin waana agoon ay qoyskiisu dan yar yihiin oo aan awoodin la tacaalida baxnaanada caafimaadkiisa. Saadaam ma awoodo in uu fariisto marka uu damco in uu meel u dhaqaaqo waxa uu ku socdaa xabadka taas oo runtii ah dhibaato xanuun badan oo ay qoyskiisa awoodin inay wax u qabtaan. aniga daawo u keenay qaxootina waa noqon xoolaha naga baabaa waa soo qaxnay. arrimaha kale ee xanuunka leh ee Saadaam haya waxaa ka mid ah in raashinka lagu siiyo isagoo jiifa mararka qaar waxaa ku adag in cuntada dhunta ay u marto waxaa kaloona jirta in isagoo jiifa uu saxaroodo. Saadaam yare waana guud ahaantooda meeqa waay? wiilkan yar ee xanuunsan ayaa waxaa la geeyay dhowr cisbitaal wax natiijana kuma soo kordhin caafimaadka Saadaam. hooyada dhashay dhibanahan ayaa ka shaqeysa maqaaxi yar oo ay ku iibiso shaaxa qarashaadka yar ah ay ka heshana waxa ay ku maareysaa nolosha Saadaam oo ah wiilkan xanuunsan iyo sidoo kale walaalaha kale ee la dhashay. asigoo aabis dhintay iyo qutulyoonka carruurta kale see isku maareysaa iyo si hayntiisa? aniga asagana waa hayaa ilmaha kaleeto iyo asagana waxa shaahba wax uga raashay. Saadaam waxa uu u baahan yahay garab istaag ay u sameeyaan dadka Soomaaliyeed maadaama reerka uu ka dhashay ay yihiin kuwa danyar ah waana xilliga uu walaalkaaga ama wiilkaaga u baahan yahay in aad garab istaagto. abaalka aad u gashay Saadaam ma iloobi doono taariikhdana waa mid qormaysa. kaba soo qaad in Saadaam yare uu yahay wiilkaaga ama walaalkaaga haddaba si uu u helo caafimaadkiisa fadlan la xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqda waxaana nambaradani wata hooyadiisa Duniyo Saciid Axmed. waxaan ugu baaqaynaa inay iga caawiyaan masaakiinkaas igu gargaaraan oo iga caawiyaan dhibka haysto. cunada ma laqi karo ma socdo laqitaanku waa ku yar yahay dhib baa lagu siiyaa muddo 1 saac ka badan la siinayaa markii cunto la siinaa loo fadhina 7 48 86 eber 9 mid kale oo ku dari karto ma jiro 8 haye 6 eber 8 ka wada 8 20 haye 4 haye 46 qoyskani danyarta ee uu ka dhashay Saadaam yare ayaa waxa ay ku nool yihiin degmada Hodan ee gobolka Banaadir gaar ahaan inta u dhaxaysa garoonka jaamacadaha beerta qaadka.